wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose wasiirka caafimaadka wasiir ku xigeenka waxbarashada wasiir dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaasha degmooyinka ayaa magaalada Marka uga qayb galay kulan markaasi looga hadlayay dardargelinta shaqooyinka kulanka ayaa odayaasha dhaqanka waxgaradka su'aalo ku weydiinayeen in wasiirka iyo gudoomiyaha gobolka waxayna su'aalaha ku saabsanayeen horumarinta iyo dowladnimada wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose jawaab waafi ah ka siinayay odayaasha iyo waxgaradka Marka iyagoona ku ballamay wada shaqeyn buuxda gudoomiyaha magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo ayaa sheegay in odayaasha iyo mas'uuliyiinta kulanka joogay isla qaateen ka shaqeynta horumarinta gobolka Shabeellaha Hoose waan ku faraxsanahay waxay noo tahay sharaf ikraamo bulshadii degmada Marka iyo maxaa la yiraahdaa madaxdii dawladaba oo iswareysanaya si saraaxad leh isugu jawaabaya ayagoo labada dhinacba ay wada qanacsan yihiin laga wada tago meeshan aad iyo aad ay farxad noo tahay noo farxad gelinaysa waana ku mahadsan yihiin wasiirada madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo uu daadehnayo ama sidoo uu jecel yahay dhammaan muxuu ahay state-da ama saddexda gobol ee dawlad goboleedka ay xukunta inay isdhexgalaan isdhexmaraan wasaaradda arrimaha gudaha wakiil ugu tahay asigoo mar walba abaamirtaas bixinaya gobolada inay isdhexgalaan degmooyinkana isdhexgalaan